gobolka Shabeellaha Hoose ayaa intooda badan waxay sheegaan in lagu bartilmaameedsanayo fariisimaha gobolkaasi ay kaga sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Haddaba qoysaska goobaha inta badan ay ka dhacaan duqeymahaasi ayaa waxyeello ka soo gaarta duqeymaha dhanka cirka ah oo ay diyaaraduhu ka sameeyaan deegaanada waxyeello ka soo gaartay. Si loo ogaado xaaladda nolosha qoysaska ku nool gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan kuwa saameynta ay soo gaartay, waxa ay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay bilowday inay qorshe u samayso sidii wax loogu qaban lahaa. Universal ayaa la kulmay isuduwaha wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana uu weydiiyey sababaha xilligan qorshayaasha uga degsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in uu wax ugu qabanayo dadka ku dhibaataysan gobolkaasi. مصطفى أحمد هلولي اسكدوها وزارة المالية كونفور قلب الصومالية أو ورئيس كار أسيي برنامج كبندقة تيفي عالمي يونيفرسال ayaa inooga waramay dakhliga wasaaradda ka soo gala gobolka Shabeellaha Hoose waxaana wax ka weydiiyay qaabka wasaaradda ay u maareyso dakhliga iyo saami xisaabeedka ku soo laabta dadka iyo deegaanka. waa ku dhawaad aba maasanta Cabdiweli online hata qofku markuu cusub yahay wuxuu u baahan yahay inuu marka hore barto shaqada dadka haya dadka maaragtay hawsha kaga sii horeeyay marka ka bacdi waxaad gaari kartaa wax qabadkii iyo meesha uu ka jiray dabacsanaanta iyo meesha maaragtay horumarka ka socday waa kala baran kartaa. laakiin aniga hadda waxaan shaqeynayaa wax dhilka yar saasay tahay haddana waxaa weeye hadda waxaan ku jiraa in shaqaalihii aan kala hufo oo kii shaqeynayana shaqadiisa lagu kontaroolo kii aan shaqeynayna la yiraahdo ma shaqeynaysid waa inaad maanta shaqada hagaajida haddaad hagaajinayna waa balqaadiraya sidaan hore u sheegay markii aan maaragtay xafladda maaragtay soo dhaweynta lii sameynayay wareejinta taasna shaqaaluhu aaday maaragtay u garaawsadeen waana dadaalkoodana aaday u labalaabeen oo hadda shaqooyinkii dakhli aruurinta waxaa weeye waa aad iyo aad maanta u imaanaysaa taasna waxaa lagu gaaray in maaragtay la tuso shaqada qofka shaqadiisa lagu kontaroolo qofku haddaan shaqadiisa lagu kontaroolin waxaa ka hadlaabaya wax badan oo maaragtay musuqmaasuq marka dambe gelinaya tahay waxyaha ku soo laabta bulshada tobiyaas karna noqonaysaa in mid xoogaa ka badbadiya noqonaysa laakiin bulshada wax waa ku soo laabanaya hadda wadada la dhisaya wadadaas la dhisayo dowladda Koonfur Galbeed dagaal ay u gashay ka mid tahay iyo maaragtay wadada hadda kor la dhisana wada arkaysay arbiska laga bilaabay ilaa la geeyay waa la sii wadi lahaa haddii la heli lahaa xorriyad iyo maaragtay nabadgelyo laakiin taas waxaa nadabraayo xoogaa celinaya xoogaa amni la'aanta xoogaa wadooyinka aan fiicnayn moori iyo maaragtay galweyn inaan baawur aadin hadda waxaa jirta baawur yar xeebta bilaabatay hadda mara xoogaa baawur yar aan baawur waaweyn ahayn marka dakhliga hadda sidoo hadda uu macnaha yahay oo hadda uu ku socda waxaa la dhihi karaa boqolkiiba 75 wuxuu dhamaa sidii marka hore ah akoonka ay ku dhacda lacagtuna waa akoonka dowladda iska leedahay Koonfur Galbeed oo la wada arkayo tawal bangiga ee fiirsada sida dakhligu u soo xaroodo taasuna mid hadda ku sheegay lagu amaanay in bishaan hadda sagaalaad oo dakhligii oo aad u kobcay ayadoo waliba waxyaabo kale oo canshuurihii aan la wada qaadin sida degmooyinka iyo maaragtay gobolada hadda dariska la ah lagama qaado canshuur hadda dowladda uma soo xarooto Koonfur Galbeed waxaan yeelay amni la'aanta iyo maaragtay dadkii ayadoo maaragtay waxba loo qabanin haddana canshuur haddii la saaraa waxay noqonaysaa in xoogaa meeshaas ka baxaysa turitaankii shacabka loo tiraayo. iskuduwe Mustaf Ahmed oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay tan iyo intii uu xafiiska la wareegay inuu helay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo ku dhaqmaya musuqmaasuq waxa uu uga digay shaqaalaha in arintaas ay ka digtoonaadaan. way jirtaa way dhacday waxaa jiray nin shaqaalaha ka mid ah inuu lacag 4 milyan iyo 500 oo lunsaday markiiba waxaan amray booliiska in la xiro lacagtiina laga soo celiyo laba habeen ku hoyday habeenkii maalinta dambe lacagtii waa keenay arrintaas shaqaalaha marka say u saameysay maadaama horey aan loo arag
shaqaalaha waxay u saameeyeen waxaa weeye waxay yidhahdeen waxaa meesha yimid saxaabtankiisu uu dhab ka yahay musuqmaasuqa la diriraya oo maaragtay ilaalinaya institutionka ay leedahay nidaamka cashuuraha loo aruuriyo aad iyo aad waqti mudane waxaa bulshada ruuxa bulshada waxaa waaye dakhli fara badan ayaa kasoo harooda gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgoye kastamada lacagaha laga qaado haday toos ugu dhacaan waa sax dadku markii la yiraahdo Afgoye waxa la yiraahdaa dakhli badan ka soo harooda laakiin dakhliga soo harooda koonka ay ku dhacdo lacagtuna waa koonka dawladda iska leedahay koonka galbeed sida dadku u maleynaya maaha maxaa yeelay degmooyinkii iyo tuulooyinkii waxaa weeye isku soo karo hal wada la maraa wadadaas aadaysa baayo bakoor taasna gaadiidka aada waa gaadiid kooban waay ugu dambeynna Mustaf Axmed Hilowle isku dubaha wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ugu baaqay dadka iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda in ay si wada jir ah u shaqeeyaan taas oo lagu gaari karo horumarka dadka iyo deegaanka hadduu saamin jirinna cashuur ma qaadi marka way amaaniyiin haday ay shaqaalaha yihiin haday yihiin maaragtay shacabka oo hadda wax qayla ah waan arki jirnay markii suubiga la soo magacaabo ama maaragtay gaadiidka isaf galaan ay yiraahdaan nin waxa la soo magacaabo waxa telefoon aan lagu kordhiyay anagu waxba kuma kordhin saaroon telefoonki sida ay heday tahay wax aan ka bedelin ma jiraan ayaguna way nala shaqeeyaan shacabka iyo ciidanka iyo shaqaalahaba intaba anigu waxaan ugu baaqay inay waxaan ugu mahadcelinayaa inay shaqo fiican hayaan aniguna insha Allah waan la shaqeey doono Abdulwali Ali online barnaamijka bandhiga TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose